Audio Jungle. Audio Jungle. Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada janalka warar cusub qodobada xilligan aad daawad doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya oo meel mariyay in maamul cusub loo dhiso Jubbaland Axmed Madoobe oo wada hadal ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Finish oo xalay xilka la wareegay ballanqaadyo kala duwan u sameeyay dadka ku sugan gobolkan Axmed Macalin Fiqi oo dhaliilay siyaasadda xukuumadda ee Jubbaland qodobadaas iyo qodobo kale ayaa goor dhow daawad doontaan janalka warar cusub haddii uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka mahadsanid haddii aynu ku bilowno xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay inaysan aqoonsaneen natiijadii ka soo baxday doorashooyinkii iska soo horjeeday ee ka dhacay magaalada Kismaayo 22 bishan war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in golaha wasiirada Soomaaliya ay isku raaceen in la taageero go'aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya oo ahaa in maamul ay ku mideysan yihiin dadka Jubbaland loo dhiso golaha wasiirada kulanka ay yeesheen waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa ay kaga wada hadlayeen sidii loo dardargelin lahaa dhismaha maamulka Jubbaland si looga hortago lagana badbaadiyo dadka shacabka ku sugan deegaanada Jubbaland xiisad colaadeed oo dhex marta dhinacyada madaxtinimada sheeganaya ee Jubbaland ku sugan sida warka lagu yiri wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya waxa uu hore u sheegay in aysan xukuumadda Soomaaliya aqoonsan doonin natiijada doorashooyin iska soo horjeeday oo lagu qabtay magaalada Kismaayo 22 bishan xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay maamul u dhisi doonto dadka Jubbaland inkastoo aysan soo bandhigin nooca dowladeed ama dowlad goboleed ay u dhiseyso dadka Jubbaland iyo xilliga ay qabanayso dhismaha maamulkaasi waxay xukuumaddu dhanka kale soo jeedisay in dib heshiisiin loo sameeyo dadka shacabka ee ku sugan deegaanada Jubbaland kuwaas oo muddooyinkii dambe eedo kala duwan kala tirsanayay dhanka kale war ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqayo inay wada hadal la gasho dowlad goboleedka Jubbaland warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo warbaahinta la soo gaarsiiyay waxaa lagu faray xukuumadda federaalka Soomaaliya in wax waliba wada hadal ay kala gasho dowlad goboleedka Jubbaland war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in dowlad goboleedka Jubbaland uu ku faraxsan yahay isla markaana uu soo dhaweynayo in khilaafka ka dhex jira xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland in miiska wada hadalka lagu xaliyo arrintaas inay tahay tan ugu wanaagsan ee xalka lagu gaari karo golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo kulan gaar ah yeeshay waxa ay soo saareen sidii loo wajihi lahaa wada hadal dhexmara xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo muddooyinkii dambe xiriirkoodu aan wanaagsaneyn arrintan ayaa waji cusub u yeelaysa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland dowladdu ma aqoonsano doorashadii 22 bishan ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Axmed Madoobe waxa uu hore u sheegay in dowladda Soomaaliya uu ka hakiyay isla markaana uu ka joojiyay mas'uuliyiintooda safarkii ay ku tagayeen deegaanada maamulka Jubbaland sababtu waxa uu ku sheegay xilligaas in ay doorasho galayaan dowladuna ay suuragal tahay in ay carqaladeyso ama ay ku fargeliso doorashadii xilliga lagu qabanayay magaalada Kismaayo inkastoo xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ay si cad u sheegtay inaysan aqoonsaneen natiijo waliba oo Jubbaland ka soo baxda maamulka Jubbaland dadka siyaasadda indindheeya waxay arrintan ku tilmaameen in ay waji cusub ugu yeelayaan xiisadda ka dhaxaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland hore waxay u joojiyeen safarka mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya toddobaadkan waxay go'aan ka soo saareen golaha wasiirada Jubbaland in xayiraad laga qaado xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta sarsare ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay sheegeen in magaalada Kismaayo ay ka baajeen xilligii lagu guda jiray doorashada 3 maalin oo maalin ka mid ah doorasho ay ka dhaceysay magaalada Kismaayo war-saxaafadeed soo baxay 20 bishan waxaa lagu hakiyay ilaa 23 bishan dhul iyo bad in aan la gelin magaalada Kismaayo ciidanka amniga ayaa arrintaasi dhaqan galiyay doorashooyinka ka dhacay Jubbaland ee iska soo horjeeday waxaa ka dhashay xaalado siyaasadeed sida in ay isku xumaadeen saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo Kenya oo isku dhacay
maadaama Axmed Madoobe uu garab ka helayo dowladda Kenya horeyna si cad u sheegtay in uu yahay musharaxa kaliya ee Soomaaliga ee daacad u ah Kenya oo ay taageersan tahay juhudin ay ku bixinayso. lama oga jawaabta ka soo bixi doonta xukuumadda Soomaaliya maadaama ay horey u sheegtay inaysan aqoonsaneyn natiijo waliba oo ka soo baxda doorashada Jubbaland. Axmed Madoobena uu ku guuleystay mid ka mid ah doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka hortimid qaabka doorashadaasi ay u dhacday iyo xildhibaanada soo doortayba. dhanka kale xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu dowladda federaalka ku dhaliilay hanaanka aan wanaagsaneyn oo ay ku wajahayso xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu tilmaamay inuu goobjoog u ahaa wax waliba oo ka dhacay magaalada Kismaayo doorashadii halka ka dhacdana ay ahayd mid xor iyo xalaal u dhacday. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waxa uu soo jeediyay in aanu la faragelin dadka Jubbaland isla markaana loo madax bannaanaysiiyo aayahooda iyo danahooda gaarka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay ku ekaato taageerada ay siinayso sida uu hadalka u dhigay. Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu kamid ah xildhibaano tagay magaalada Kismaayo waxa uu kulamo gaargaar la qaatay mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland isagoo ka qayb galay munaasabadihii kala duwanaa sida dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee dib loogu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo tagay magaalada Kismaayo waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbadeen inay gacan siiyaan maamulka curdinka ah ee Jubbaland ee uu hogaamiyaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada mucaaradka ku ah xukuumadda waxa uu dalbaday in loo daayo danahooda gaarka ah dadka Jubbaland ku sugan sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa xalay xilka la wareegay waxaana si rasmi ah uu maanta u noqonayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir maadaama maalmihii la soo dhaafay oo ahaa gudoomiye magacaaban. Gudoomiye Cumar Finish oo xalay khudbad ka horjeediyay ka qaybgalka xafladiisa waxa uu kaga hadlay waxyaabaha uu rajeynayo inuu ka qabto gobolka Banaadir. Cumar Finish waxyaabaha uu sida gaarka u tilmaamay waxaa kamid ah sugidda amniga, dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho, soo celinta bilicda caasimadda iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah dadka degan caasimadda dalka ee Muqdisho. Cumar Finish munaasabadiisa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya waana tan keentay in dad badan ay wax iska weydiiyaan munaasabadii xalay ka dhacday aqalka dowladda hoose Xamar. amniga caasimadda waxa uu sheegay in uu diiradda gaar u saari doono isla markaana ciidanka dowladda Soomaaliya waxa uu faray in ay isku howlaan sugidda amniga caasimadda Soomaaliya. Cumar Finish waxa uu ballan qaaday in wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood burbursan inuu dhisi doono laamiyaal ayuu sheegay inuu saari doono halka kuwa kalena jay iyo waxyaabo kale oo dadka u sahlaya in gaadiidkooda ay isticmaalaan ayuu sheegay inuu ka hirgelin doono caasimadda Soomaaliya Muqdisho. gudoomiye Cumar Finish oo qaatay khudbadii ugu dambeysay waxaa kaga sii horeeyay hadal jeedinta gudoomiyihii gobolkan Banaadir kaga horeeyay Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo sheegay in dhibaatooyin ay ka jiraan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxa uu si gaar ah u tilmaamay gudoomiye Mungaab in gaadiidleyda ay dhibaatooyin ku qabaan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. tusaale waxa uu soo qaatay gawaarida dhagaxaanta qaada oo uu tilmaamay in dhowr kaariko ay qaadi jireen maalintii balse hadda ay ku soo koobmeen hal kaariko feelleerna ay u galaan wadooyinka magaalada Muqdisho sida Mungaab uu sheegay. fariintaas oo uu waday Mungaab waxa uu kala dulacay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish isagoo ka rajeeyay in uu wax badan ka qabto sida uu hadalka u dhigay. gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maalmihii la soo dhaafay kormeer ku waday xarunta gobolka Banaadir iyo goobaha muhiimka ah oo ku shaqeynayo waxa uu isbedel ku sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha amniga xarunta gobolka Banaadir sugaysa maadaama uu jiro shaki ku aadan qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose bishii Julaay dhamaadkeeda waxaana dadkii xilligaas u geeriyooday ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas'uuliyiin u badnaa howlwadeenada gobolka Banaadir. Cumar Finish waxaa horyaala dhamaystirka waxyaabihii u qabyada ahaa gudoomiyihii kaga horeeyay gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow.
wadooyin magaalada Muqdisho ka tirsan waxaa ku socda dib u dhis lagu sameynayo waxaana Gudoomiye Cumar Finish laga doonayaa inuu dhameystiro howlaha dhismaha wadooyinka. Mas'uuliyiinta kale ee mucaaradka ee xalay ka qayb gashay munaasabadii ka dhacday aqalka dowladda hoose waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi oo dalkan ka soo noqday ra'iisul wasaare. waxa uu isna si gaar ah uga hadlay culayska caasimadda iyo waxyaabaha ay ugu baahan yihiin Cumar Finish dadka ku nool gobolkan Banaadir. guud ahaan daawada warkii aad xiligan kala socoteen channelka warar cusub waa nagiita wixii warar iyo dhacdooyin soo kordha haddii alla idmo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. nabadgelyo. channelka warar cusub haddii uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka mahadsanid.